magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shirka wada tashiga beesha Mudulood waxaana ka soo qayb galay shirkaasi wada tashi dadweyne tiro badan sida dhalinyaro siyaasiyiin aqoon-yahano madax ka socotay maamulka Hirshabelle haween duubabka dhaqanka uu ugu weyn yahay imaamka beesha Mudulood iyo xildhibaanada labada gole ee dawladda madaxda joogtay waxaa ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyo Xasan Sheekh Maxamuud inta badan dadka khudbadaha ka jeediyay madasha waxay intooda badan jeedinayeen in muhiimada koobaad laga dhigo talada Mudulood oo midaysan waa in xamaasadii la helo waa in hiiladii la helo dhibaatada maanta aan taagan oo anaka gacnayna ku keensanay oo nahaysa waa in laga dhiidhiyo bariga anigu ma aha colaad abuuri ma laakiin danahayna dhibaatada nahaysata waa u jeedin jidaan ugu xiran umurihii ku jidadku ku dhalaaya horu socodkanaga iyo howlaha aan wadnay waxay ahaayeen waxa la yiraahdo midnimo Mudulood beelaha Soomaaliyeed beel kamid ah waxaan isniinay labadii heshiis hal wada maashee ciidan madmadow haduu jiro allahu kala baxo hasha laba qof isla listo dadka baadiya markay hasha labada qof isla listo intay isla wareegtaan hadana wadaagaan midna mar u dhiibaa kalsoonitaas ka badan ma leeyahay oo qaranka lagu sheegay waa qaran maaragtay beel ka balaaran Muduleeda guul la siiyo hadafkoodana la gaarsiiyo war dhamaantiisna dad raba anna yaqaana u jooga intaas aruga baxa wassalaamu calaykum guddiga qabanqaabada shirkan wada tashi ayaa sheegay gogosha ka hor inay jireen kulamo isdaba joog ah oo ay la qaadanayeen qaybaha kala duwan ee beesha Mudulood si loo helo shirweyne guud oo looga tashanayo danaha Mudulood xildhibaan Cabduqaadir Cusable Cali iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Madaale iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle ayaa bogaadiyay shirkan iyagoona ka dardaarmay in la xoojiyo midnimada Mudulood insha Allah ta'ala waa ku faraxsanahay isu imaatinka iyo shirka iyo midnimada in target ay ahaato oo ma aragtay la wada farta lagu wada fiiqo culayska meeshaas ka jiro oo anagu aanan ku filnayn oo cadawga jidka haysto oo jinka ah sida uu sheegay ninka la yiraahdo xildhibaan Shiiraar oo midka aniga waxa la soo istaajiyay inaan magaca xildhibaanada iyo senatarada iyo aan ku hadlo kuwa maqan kuwa xukuumadda ku jiro kuwa joogo dhamaantood magacoodan ku hadlaa waxaan ku faraxsanahay oo soo dhaweeyayna oo boqolkiiba ku faraxsanahay juhdiga walaalaheena ay bilaabeen hawsha ay qabteen oo bilaaw ah maanta meeshan laga bilaabo waxaan rabnaa imaamka iyo ugaasada inay inta kala wareegaan beesha ay dadka oo dhan tamaninayaan iyo akhyaartii intii waday iyo intii lagu darabo ay wadaan oo ay gaarsiiyaan ummadaan taladan Mudulood muddo badan ay soo socotay haddana waa soconaysaa annagu hadafkaynu wuxuu ahaa inaan gogoshan keenno dadkii isugu yeerno oo aan dhahno war Muduloodow waxa kugu dhaco og tahay oo haday ahlee deegaanadaadii dhibaato haysato isteedadii waa ku qasan tahay shabeellada hoose niman ka socdaan noomida maalin dhaweeday inay ooyaan ay ku sigtaan waxay yiraahdeen 70% waxaan degnaa shabeellada hoose haddana waxay yiraahdeen waa mingooriyo waaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay shirkan wada tashi ee beesha Mudulood isu timaadeen maanta waa isu timaadeen waa joogtiin magacaas wada tashiga aad ku joogtiin qof kasta oo adinka idinka mid ah waa muxtarim shirkaanu wax ku leeyahay odayaasheenii sharafta badnaayo imaamku hogaaminay waa noo joogaan waxaan rabnaa dadkaana inay inta tashadaan ay danahooda ka tashadaan dawladnimadana xaq waajib ay ku tahay horumarinteeda inay ka tashadaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa si kulul uga hadlay wararka sheegayay in la baajinayo shirka wada tashiga beesha Mudulood waxaan maqlaayay laba shiri karo Mudulood ma shiri karo war saasa maqlaayay Mudulood ma shiri karo war saasa adagay ku soo dhacay Mudulood waa shiraya si sharci ah ku shiraya si sharci ah ku weydiisanaya muxuu ahay shirkiisa xaq uu leeyahay inuu shiro sida Soomaaliya oo dhan ay qof walba xaq u leedahay maalintay go'aansato inay jirtay ayay inay shirtay xaq u leedahay mana loo diidi karo cid u diidi kartana ma jirto
waxaa shirka duco ku soo xiray imaamka beesha mudulood imaam maxamed yuusuf mudulood ku dool maraba isla leef Allah ka dhigo sharta shaydaanka Allah ka xijaabo gudaha iyo dibadda ku isaga yimaado Allah ka dhigo dantooda ku garta Allah ka dhigo ku dantooda ka sii jeeda Allah kama dhigo xaasidkoodana Allah qabto Soomaalina nala qabto haddii Ilaahay ilaadaa mudulood kaliya wax tarmay Soomaali mid nabad ku noolaato Allah ka dhigo sharta shaydaanka Allah wada xijaabo adoon walba wuxuu leeyahay xawahay muraadka uu leeyahay Allah sahal wixii dhib lahay Soomaaliya Allah ka qabto Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho